السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الكلنتو عن وناكسن مركل سود وهذا إن شاء الله عاوة حرمنا كشك سنو سؤالين بدنا أصحابتي سوي ديان بس أنا كلا ده هنا نقصك سو جوابه صبوتا وحديراتي بارتان كي أنكو سمينا أي ما دام أنا نهين قف بروفيشنال أو أرماس ستوس أو شقة أنا نهين waxaan u baahdayna marka baaritaan dheeriyo intii hore ka badan aan sameeyo insha Allah bal caawa ayaan waxaan ka soo koobay saddex warqadood igu qoran ayaan isla wadaagi doonaa arrintan waxay ku saabsan tahay marka arrimaha group of 5 ama group 5 waxa Soomaalidu taqaano marka waxaan rabnaa su'aalo muhiim ah iska weydiino group 5 ka la xiriira si aan bal conceptiga u faahno wuxuu yahay iyo soo u shaqeeyo iyo shuruudihiisa iyo waxa soo dhan u faahno insha Allah da arrimahaas xiiseynaysa marka this is the right time waaye xog badan ayaad ka heli doontaa haddii alla idmo sidoo kale haddaad garanayso qof arrimaha dareynayay oo group 5 ama sugayay ama mataqaanaa hadda rajeynayay inuu helo insha Allah video kala share garee waxoogaa xog ayuu ka heli doonaa insha Allah intaan video u gal marka hore waxaan ka cudur daaranayaa inaan ahayn anigu qof professional immigration consultant inaan ahayn inaanan lawyer ahayn inaanan sinaba ugu lug lahayn arrimaha immigrationka kaliya waxaan idin wadaagay inay tahay xog aan soo aruuriyay insha Allah on linkiyada dhammaan waxyaabaha meeshan ku xusi doonaan idinkan hoos idinkula wadaagi doono oo qof walba uu soo baaran karo insha Allah taa haddaad ila fahanteen marka aan u guda galno barnaamijka waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijyadeeda mar kale soo dhawaada saaxiibayaal haddaad channelka ku cusubtahay fadlan subscribe garee waan kaaga mahadcelinayaa taa haddaad ila joogteena aad iyo aad ayaan ku salaamayaa fadlan ha iga dheeraanin wax fara badan ayaa soo socda insha Allah maalinba meel ayaan gali doonaa weli asxaabta su'aalaha ay soo weydiiyaan ma dhamaanin maalinba meel ayaan u gudbanaa marba barnaamij ayaan tegaynaa waxaan sidoo kale idin xusid mudan inaan hadda ka bacdi soo gelin doono 3 video ugu yaraan rasmi ah every week aan soo gelin doono timetable ku waxaan ka dhigay maalinka talaadada idin tahay galabka talaadada inaan soo gelin doono video arbacada galabkeeda inaan soo gelin doono video khamiista galabkeeda inaan soo gelin doono timetable-ka marka rasmiga saas uu noqonayaa haddaan helo waqti kale oo ka badan oo dheer insha Allah mid ama laba ayaan ku dari doonaa balse saddexaas rasmi ayay noqonayaan hadda ka bacdi insha Allah intaan awoodi karo caafimaad qabo insha Allah saddexaas every week saddex video ugu yaraan ma soo gelin doonaa ila socdo marka haddaan u imaano barnaamijkeeni su'aasha koowaad waxaan noqonaysaa horta group 5 muxuu yahay marka conceptiga guud fahano marka group 5 waxa laga wadaa waa 5 qof oo isku community isku dal ah oo intay isu tageen ku heshiiyay in qof banaanka ka jooga Canada oo qaxooti ah inay u dacwadaan dalkan keenaan okay taas ma la fahmay haddii marka taas aad fahantay shuruudo ayaa marka ku xiran qofka dadka keeni kara qofka qof u dacwoon kara shuruudo ayaa laga rabaa ama group 5 ka qofka ka mid noqon kara dadkaas shuruuda koowaad waxa laga rabaa qofku inuu yahay ugu yaraan 18 sano iyo wixii ka weyn hadduu under age yahay waxa uu ma dacwoon karo full stop number 2 waxa laga rabaa inuu haysto sharciga deganaanshaha dalka ama uu yahay Canadian citizenship inuu haysto dhalasho dalka inuu haysto number 3 waxa laga rabaa inuu leeyahay income oo qofku leeyahay qofka sponsor gareynaya hadduu soo waxba soo gelin waxa waaye waxba ma sponsor gareyn karo adaan taadi qaadi karin ee qofka intee geene waa inuu income leeyahay number 4 waxa laga rabaa inuu yahay qof aan dambi ka gelin dalkan laga rabaa aan jail ku jirin aan dambi gelin isla markaana aan dhalashada lagala noqon intaas qofku marka la buuxiyo shuruudahaas oo dadka inta ay soo buuxiyaan ayaa waxa la sameeyaa marka form ayaa la diyaarinaa qof kasta uu qorayo oo buuxinayo oo saxiixayo oo sheegaya in qofkaas uu rabo inay u dacwadaan groupkaas ay rabaan inay u dacwadaan qof meesha jooga magacaas la dhaho ay rabaan inay u dacwadaan qofka loo dacwanayo marka shuruudo ayaa ku xiran qofka sponsorship-ka lagu keenayo laftirkiisa shuruudaha laga rabaa shuruudda koowaad waxa qofku inuu yahay qaxooti inuu yahay oo ay cadaysay UNHCR
ama uu cadeeyay dal aan ahayn dalkiisii oo documenti uu ka haysto cadeynaya inuu qaxooti yahay. haddii marka waxaa ka baxday uu qofkii joogo dalkiisii oo kale kuma jiro sheekada, looma dacwoon karo. shuruuda koowaad waxaa waye inuu qofku qaxooti yahay oo aqoonsi qaxootinimo uu haysto, uu ka qaatay UNHCR ama uu ka qaatay dal shisheeye oo aan dalkiisa ahayn. shuruudda koowaad markuu buuxiyo, shuruudda labaad waxay tahay inuu yahay qof aan dambi gelin oo criminal aan ahayn, qof oo crime aan soo gelin waa inuu yahay. aanu imaano marka kharashaadka meeqa ayay ku kici kartaa qof inaad u dacwooto group 5 loogu dacwoodo oo dalkan Canada lagu keeno. waxaad arki doonto, waxaan idin tusi doonaa screenshotka dowladda websitekeeda ku qoran cadadka laga rabo dhaqaale ee laga rabo groupka si qof ama 2 ama 3 ama 4 ay ugu dacwoodaan. mid walba qiimihiisa ayaan fiirinaynaa, screenshotkana waa ka arki doontaan. in loo dacwoodo marka hal qof oo 5 qof ay ugu dacwoodaan waxaa laga rabaa inay u qoondeeyaan lacag gaaraysa 16,500 oo dollarka dalkana baa laga rabaa. macnaheedu waxay tahay waa in meel loo dhigaa qofkaas 16,500 oo dollar oo loogu talagalay qofkaas inuu ku noolaado 12 bilood ee ugu horeysa dalka Canada. waayo 12 bilood ayaa laga rabaa inay hayaan qofka, wixii ka damay 12 shaqo kuma laha qofka banaanku ka tagaya. marka 12 bilood ugu horeysa lacagtii uu ku noolaan lahaa baa laga rabaa in ay meel dhigaan 16,500 inay geliyaan akoon ay dowladda og tahay. sidoo kale waxay dhaheen waxaa alternative ama u dhiganta haddii 3 qof oo ka mida groupka ay soo cadeeyaan dakhliga bil kasta soo gala oo rasmi ah, hadday shaqo hayaan, hadday ganacsi ku jiraan, hadday sudoona ha usoo galeen, laakiin documenti laga diyaariyay ay cadeyn keenaan bil walba waxaa soo gasha si loo ogaado inay u qalmi karaan, si in ay dabari karaan qofkaas soo geliya kharashkiisa. waa inay markaas 16,500 akoon lagu shubo oo dowladda ogtahay, ama warqado cadeyna oo ay keenaan 3 qof ugu yaraan oo groupka kamid ah oo sheegaysa income-kooda joogtada ah bil kasta soo gala sanadkii soo gala inay soo cadeeyaan si loo qiimeeyo inay sponsor gareyn karaan qof. taasna waa la fahmay soo maahan. waxaa xusid mudan lacagtaas inaysan ahayn lacag dowladda la siinayo. dowladda wax lacaga oo la siinayo ma ahan. lacagtan waa lacagtuu ku noolaan lahaa qofkaasu qofka la keenaya 12 bilood ee ugu horeysa dalka Canada. waxaa ku jirta cuntadiisii, waxaa ku jirta jiifkiisii. waxaan aad ula yaabay markaan fiiriyay screenshotkan waa arki doontaan kharashka biilka ay ugu talagashay qofka inuu ku noolaado bishii dowladdu, kharashka ay ku cadeeyeen website-kooda iyo kharashkii maalin weyto barnaamij aan ka diyaarinayay kharashaadka kugu filan qofka ku filan inuu Canada ku noolaado, intii noo soo baxday calculationkii inay aad iyo aad isugu dhawaadeen oo aad moodayso dowladdu in ay iyaguna calculation qaadatay ay xisaabisay si ogaato qof walba kharashka ku isticmaali karo. waxaa anaga noo soo baxday videogii hore in qofka loogu talagalay qofka ay ku filan karto qiyaastii aan sameynay aan aruurinayna videoga 1,110. website-ka dowladda markaan fiiriyay kharashka ay ugu talagaleen qofka bilshii inuu isticmaalo waxay ku sheegeen 1,100. macnaheedu waxay tahay marka dowladdu waxay shilin u xisaabisay waxa bishii qofka uu isticmaali karo. waa ajib, way kula socdaa marka wax laga dhuuman karo maaha. haddii marka hal qof loo dacwoonayo sida asxaab ay soo weydiiyeen 5 qofba ma hal qof bay u dacwoonayaan mise 5 qof ay keeni karaan. inaad hal qof keentaan iyo inaad 5 qof keentaan marka waxay ku xiran tahay kharashka aad dowladda tustaan ee aad ugu talagasheen inaad dadka ugu dacwotaan. aan marka fiirino screenkan waa arki doontaan halka qof waxaa lagu sheegay marka in laga rabo 16,500 inaad keentaan ood meel dhigtaan
haddii laba qof ay tahay waxaa laga rabaa inay inay dhigaan labada qof haddii rabaan in laba qof ugu dacwoodaan 22,800 ayaa laga rabaa. hadday 3 qof u dacwoonayaan waxaa laga rabaa 26,700. hadday 4 qof u dacwoonayaan waxaa laga rabaa 28,700. hadday 5 qof u dacwoonayaan waxaa laga rabaa 32,300. hadday 6 qof u dacwoonayaan waxaa laga rabaa 35,500. soo adiga xisaabso, haddii 5 qof ay rabaan inay keenaan waa 32,300 ayaa laga rabaa. haddii 1 qof rabaan inay keenaan 16,500 ayaa laga rabaa. waxaan u maleynayaa inay su-aashaas marka ka jawaabay asxaabtii soo weydiisata arrinta la xiriirtay ma 1 qof baa loo dacwoonaa mise 5 qof bay u dacwoon karaan. 5 qof way u dacwoon karaan, balse kharashka laga rabo ayaa intaa noqonaya. waa fahanteen marka. haddaan kharashka intaa kaga imaano, waxaa jirta marka markii kharashkii lasoo cadeeyay shuruudii qofkii dadka dacwoonayana ay kasoo baxeen shuruudihii, qofka loo dacwoonayana shuruuduu kasoo baxay. waxaa marka laga rabaa marka 5tii qof inay qoraan form, inay diyaariyaan form, ay qoraan, ay wada saxiixaan, ay ku cadeynayaan qofka noocaasa oo meeshaas ku nool inay go-aansadeen inay Canada keenaan ay u dacwoodaan. forman baa laga rabaa marka ayaga inay buuxiyaan. formka markay buuxiyaan oo ay wada saxiixaan, waxaa laga rabaa marka inay ku lifaaqaan dokumentiyada, koobiyada hadday haystaan qofka dadkaasu haystaan, oo qof walba uu haysto ama qof walba wuxuu haysto dokumentiyada midkii kamid ah uu haysto qof walba. hadduu qofka haysto Canadian passport ama baasaboorka Canada, inuu koobi kasoo bixiyo oo ku lifaaqo dokumentiga la dirayo. haddii uu haysto warqada dhalashada oo Canada oo baasaboorka ka hor la siiyo qofka marka citizenshipka loo ogolaado, inuu koobi ka bixiyo. haddii uu haysto sharciga deganaanshaha dalka, inuu koobi ka bixiyo. haddii uu haysto warqada kusuga sharciga deganaanshaha oo ka horeysa ama ay u yaqaanaan IMM 5292 ama IMM 5688 ay dhahaan, anything oo dokumentiyada kamid ah ayaad ku lifaaqaysaa formka si loogu diro dowladda. marka intaas la buuxiyo, formkii la buuxiyo, dokumentigina lagu lifaaqo, waxaa laga rabaa sidoo kale in lagu lifaaqo dokumentiyadii qofkii loo dacwoonayay. waxaa kamid ah wixii uu qaxootiga kaarkii aqoonsiga qaxootiga uu haystay ayaa laga rabaa in loo gudbiyo oo lagu diro. markii dhammaan dokumentiyadii marka la isku soo dardaray, waxaa loo dirayaa xafiiskii dowladda ayaa loo dirayaa. xafiiska dowladdu qiimeyn wuxuu u dirayaa sarkaal kamid a saraakiisha oo fiisooyinka meeshaas uu qofku dalka uu ku sugan yahay. qofkaas ayaa wuxuu ku sameynayaa screen gareynaya wixii loo soo diray iyo qofka ayuu baarayaa. wuxuu qofku ugu wacayaa wax la yiraahdo interview, ayuu ugu wacayaa. interviewga wareysi ayuu ka qaadaya si uu ogaado qofkaas wuxuu yahay. waxaa laga rabaa marka wixii uu dadka u dacwoonaya ay gudbiyeen iyo qofkaas waxa uu sheego inay islahaadaan. so that means marka intuusan qofku safaaradda looga wicin, dadkii dacwooday waxaa laga rabaa inay xogtiyo dhammaystiran wixii dowladda la wadaageen inay u diraan qofkaas, si asagana uusan uga leexan warbixintii dowladda lala wadaago ay already ku haysaan systemka. kabacdi marka wareysi laga qaado qofka, waxaa loo dirbayaa waxa la yiraahdo faraa laga soo qaadayaa si loo hubiyo inuu dambi uu galay ama dambiyo laga hayo recordka ay ugu jiraan. sidoo kale waxuu u dirayaa qofkaasu waxaa loo dirayaa waxa la yiraahdo caafimaad ayaa loo dirayaa. haddii marka caafimaadkiisa dhib laga arko, iyadana dib u dhac ayaa imaan kara ama kayskiisa saameyn ayay ku yeelan kartaa. caafimaad marka uu diro marka qofka sarkaalkaas qaabilsan fiisaha oo xafiiska joogay, caafimaadka qofka uu soo baaro, farihiisana uu soo baaro, go-aan wuxuu kasoo gaarayaa marka qofkaas in uu u qalmo in la siiyo fiisaha dalkan Canada ku imaan lahaa. haddii uu u qalmo marka fiisaha ayuu siinayaa. hadduusan u qalmina dee no buu dhahayaa marka uma qalmo. haddii uu soo siiyo marka waxyaabo waxaa jira marka laga rabo qofkii markuu soo aado dalkan, groupkii u dacwooday mas-uuliyad saaran oo laga rabo inay kasoo baxaan. mas-uuliyadda saaran kow waxaa kamid a marka inay kusoo dhaweeyaan airportka oo iga hortagaan, maadaama ay iyagu dacwoodeen dowladda aysan shuqul ku lahayn.
ayagaa laga rabaa inay airboortka ugu tagaan, ay kasoo qaadaan taxinta u qaadaan ama gaarigooda airboortka ay kasoo kaxeeyaan, ay geeyaan meeshii ay ugu talagaleen qofka inuu deganaan lahaa, inuu dego oo ku noolaan lahaa, ama guriga uu ku meel gaarka ahaa waa inuu meeshuu degi lahaa ay geeyaan. sidoo kale waxaa laga rabaa inay u kaxeeyaan si uu helo adeegyadii dowladda sida kaarka caafimaadka in loo soo gooyo, in loo diyaariyo waxaa la yiraahdo warqadii lijir kaarki 9kii number ee shaqada, 9kii number in loo diyaariyo ee loo raadiyo, iyo wixii adeegyo kale oo u baahnaa oo dowladda uga baahnaa in loo kaxeeyo ayaa laga rabaa, mas-uuliyadooda saaran. number 3 waxaa laga rabaa inay la raadiyaan qofkaas suu shaqo ku heli lahaa oo kale, ay ka caawiyaan, khasamayna ayaga ay shaqo siinayaan, balse inay ka caawiyaan suu shaqo ku heli lahaa, meelaha ay adaa shaqo geynta inay la raadiyaan, sidii shaqo ku heli lahaa inay kala shaqeeyaan, ka caawiyaan. sidoo kale waxaa laga rabaa inay la raadiyaan, inay ka caawiyaan suu dalka ula qabsan lahaa baa laga rabaa. intaas markuu sameeyo ay sameeyaan muddada sanadka ayagaa gacanta ku haynaya. haddii uu qofku isku filaado marka sanadka muddada ka hor isku filaado, macnaheedu tahay isagu inuu biilkiisa isla bixi karo, dadkii wuxuu tegayaa qofka iskale, qofkii loo dacwooday oo la keenay, wuxuu dowladdu ku noqonaya, wuxuu leeyahay aniga am already okay baan ahay, waan isku filnahay, kharashkayga waa isdaberi karaa. saa darteed waxaa mas-uuliyaddii ka dhacaysaa dadkii u dacwooday, bannaankay ka istaagayaan, waxaa la dhahayaa waa okay saasa tahay. marka waxaa jirta arrimo mararka qaybta sababa in uu dokumentiyada qofka loo dacwoonayo in dokumentiyada dib loo soo celiyo. waxyaabaha sababi kara waxaa kamid ah dokumentiyada oon la wada saxiixin, 5 qof aysan saxiixin oo kale, ama qayb kamid aysan saxiixin. waxaa kamid ah sidoo kale in documentiga gacan lagu soo qoray ee uusan ahayn wax tirtiraysan. sidoo kale waxaa kamid ah in English ama Faransiis uusan ku qornayn. haddii afka ku qoran yahay lama rabo documentiga, waa la soo celinayaa. sidoo kale waxaa laga yaabaa inay jirto emailada attachmentyada emailada lagu diray ama faylalka emailka lagu diray inay ka weynaadeen 5 MB, ay ka weynaadeen. haddii 5 MB ka weyn yihiin dib ayaa loo soo celinayaa. waxaa ka xusiyaa sidoo kale foomamka si loo gudbiyo, waxaa loo gudbin karaa email, waxaa loo gudbin karaa boosta ayaa lagu diri karaa. so kii ku fudud baadiga waad sameyn kartaa, intaas ayaa sameyn kartaa. waxaan u maleynayaa marka intaas ayaa ugu waaweynaa waxyaabaha aan ka xusi karo. insha Allah qaybtan waa qaybtii koowaad. qayb labaad ayaan soo diyaarin doonaa oo update ah, oo aan kusoo daray wixii xog dheeri aan kasoo helay insha Allah arrintaas. balse intaas ayaan caawa kaga video. waa ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeeda. insha Allah haddii alla idmo berri galab ayaa barnaamij kale aan soo gelin doonaa. waad ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijyadeeda insha Allah. خير بدنا يرجعنا فلان هالمامنا سبسكرايب جريسان إن الله جريسان إن كومنت جريسان إن أصحاب تنوشر جريسان تتكلم على نسائنا برنامج هذا دنيا وهذا كلمة دنيا. إنت أنكو كل الدنيا برنامج كله وهذا كريتيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.